السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعوق وشعب عبد محمد وعن كم هاي أرضي وحكبرتو كافيه تكنولوجي سنتر. كافيه تكنولوجي سنتر waxaan kusoo biiray anigoo dugsiga xilligeygii dugsiga sare xilligaas waxaan ka baranayay mobile app muddadaas kadib ilaa hadda oo maanta aan ahay graduated oo dhameeyay jaamacadda Salaam waxaan bartay xirfado kala duwan oo aan ka bartay Cafe Technology Center kuwaas oo kamid yihiin mobile app iyo web development iyo framework KTC framework. maanta waxaan awood buuxa u leeyahay inaan dhisi karo system walba oo real life ah ka oo isticmaali karaan macmiil. hadda maanta systemka maanta aan sameeyay waxaan ku dhisay KTC framework waana system lagu maamulo goobaha gawaarida lagu dhaqo iyo mootooyinka. waxaa loo yaqaanaa car wash management system. hadda waxaan gudaha geli doonaa systemka. waxaan ku geli doonaa username iyo password. markaan soo galno marka meeshaan la keeni doonaa inta waxaa yaala waa dashboardkii waa registration meeshii aan diiwaangelinta ka samayn lahayn appointmentiska meeshii ballamihii aan ka samayn lahayn finansiga meeshii lacag qabashada iyo waxaas iyo meesha oo reportiska. marka waxaan ku mari doonaa registrationka kadib waxaan diiwaangelin doonaa inaan ku darno customer cusub. customerka cusub waxaan dhihi doonaa magaciisa Shucayb oo kale. waxaan gelinaynaa customer numberkiisa kadib waxaan leenahay marka safe. waxaan u dhihi doonaa customerkaan iyo lambarkiisa waa la diiwaangeliyey. marka haddii aan mar kale ku celino Shucayb oo dhahno lambarkaas waa nala diidi doonaa. waxaa lagu leeyahay customerkaan hore loo diiwaangeliyey. marka lama rabo customer mar la diiwaangeliyo iyo mar labaad la diiwaangeliyo. customerka marka waa kugu soo laaban karaa mar labaad. marka kugu soo laabto marka waa inuu lambarka ka bedelnaado. halkaas waa loo diiwaangeliyo leeyahay. kadib waxaan ku dari doonaa service cusub adeeg cusub. marka intaan adeeg sameyn waxaa ka horeeya inaan vigiliskii sameyno. vigiliska marka wuxuu noqon doonaa waa kategoriyada. waxaa kaloo sameyn doonaa vigil kale oo la dhahayo kadib marka service haddii u maalin aan diiwaan gelino waxaan dooran doonaa vigil tabka waxaa waaye baabuur oo kale. kadib baabuur waxaan ka diiwaan gelinaynaa magaciisa premium service marka meeshaan waxaa waaye service nameka waa dhaqis qiimaha lagu dhaqaayo. tusaale waxaan leenahay $4 kale kadib waxaan leenahay safe. hadda marka ku celino xogtaan waxaan loo dii doonaa hore loo diiwaangelishay hore loo diiwaangeliyey. marka vigiliski aan diiwaangelinayna markaas igana waxaa raadi doonaa customerka. waxaan raadi doonaa customerka magaciisa customerkaas kadib meesha waxaan dhihi doonaa baabuurka magaciisa waa premium meesha ku tirsan yahay waa baabuur. kadib meesha waxaa geli doontaa book numberkiisa. intan waxaan gelinaynaa taarka numberka modelka waa sanadkii la sameeyey jalalkiisa meeshaan gelinaynaa kadib safe aan leenahay. marka hadda waxaan ka dhamaanay inaan customer diiwaan gelino adeeg cusub aan sameyno vigilist typeka aan sameyno sidoo kale baabuurkii aan diiwaan gelino. waxaan u maanaynaa marka inaan sameyno appointment and charge. waxaan dooran doonaa customerka rabno inaan ballanta u qabano sidoo kale lacagta aan ku dalacno. marka serviceka aan ku dalacayno wuxuu noqon doonaa dhaqis baabuur oo kale $4. kadib waxaa dhaqayso waa baabuurkan premium safe and charge. waxaa lagu dhihi doonaa ballan ayaa loo sameeyey customer ID-gan wuxuuna doortay dhaqis oo qiimihiisu yahay $4. waxaa imaanaynaa markii qaybta finansiga waxaa raadi doontaa customerka magaciisa automatic waxaa kusoo bixi doontaa lacagta lagu leeyahay. marka hadda customerkan waxaa lagu leeyahay $4 haddii aan marka $5 ka qabanaynaa waa nala diidi doonaa. waxaan leeyahay lacagta laga qabanayo kama weynaa karto midda ku taagan. waxaa ku taagan $4 anagana waxaan dhahnay waxaan ka qabanaynaa $5. marka hadda ahna $4 marka hadda 4 ku taagneed 4na ka qabanay. waxaan isku dayaa marka inaan dhahno discount u sameynayna $1 si waan nala diidi doonaa. marka si aan discount ugu sameyno meeshaan waa inay noqoto hal meeshaan waa inay ka yaraato $2 kadib discount ha u sameynaynaa. marka isku dar waxay noqon doontaa $3 safe aan leenahay. marka waxaad dooran doontaa sorry nooma diiwaan gashaan bangi registrationka imaaw. meeshaan waxaad diiwaan gashan doonaa aqoon la dhahayo EVC.
waxaa heli doonaa customerka magaciisa kadib $4 ku soo bixi doonto waxaan leenahay waxa ka qabanaynaa $2 $1 ma dhaafina EVC aan ku qabanay safe alena automatic waxa uu doonaa register successfully kadib waxa ku soo bixi doonto printing waxa loo daabici doonaa invoice هذا فمرة عم بيد ولا ما بيحلين وبانس وعكو تاجن على دورة مركب بانس يا ولا مسترينا سي مجلس ونقطة بيت على دورة واي على دولار سكانتي زيرو EVC أبغى وانا يسيف عدم كيستاتس ويا نقطة بيت وسيدو كل حاجة سي ويت نمبر 2 sidoo kale meesha waxa ku diyaabin doonaa category-da expensive kilo magaca bixi doonaa bay expensive waxaan bixi doonaa lacag 150 ah waxaa leenahay tusaale lacagta kilada waxaan ka bixinay EVC oo kale ama salaan bangi kadib waxaa leenahay safe marka aw maana reportiska إيشان وحنو يالو customer listiga sidoo kale service listiga si waa kana waqti waxaan ka bedeli karnaa markii dilid waa naga xiran tahay waa soo arki doonaa si soo furanaynaa kadib meeshaan appointment and list amount waxaa raadi doontaa balama taga hadda halkan balan leh taagan bis status كده وبيت بيمت status كده سيدو كده وcomplete وواحد ماتي انت ما account list كده أصلاً سيدو كده واسمه كرنا editing سو كاسيو أنا حين وصلت دهنا انت ما كحقوق custom statement على يد انت معميل كذا سير جاله مركا وكذا $4 kusoo dalacnay sidoo kale $2 ka qabanay $1 ma xaquusan $1 man laba ka qabanay sidoo kale $1 discount ku sameeyay ka balancegiisu waa 0 expensive category-ga asigana waa kana airportkiisa sidoo kale asigana waa dhigta garan karnaa qarashaadka aan bixinay reportkooda ayaga waa kana kilo $150 sidoo kale kilo $159 aan kala bixinay marka waxaa tagaynaa qaybta user management-ga user permission waxaa dooran doonaa userka kadib sir jaaleenahay qaybta waxaa imaanaynaa delete permissionska waxaa soo furo doonaa inaan tiri karno service-ka iyo account-ka iyo expensive category intaas soo furanay soo waxaa u imaan doonaa expensive category sirja leenahay waa kana marka waa dilayna qofka marka wax tiray marka waxa la weydiin doonaa faahfaahin iyo password inuu gasho soo faahfaahintan waxa leenahay tusaale tasti sidoo kale waxa geli doontaa passwordkan waa passwordkii marka hore log in ku soo sameysay hadda waa tirnay sirja dadano u baxay marka mar labaad tirayna waxaan qaldaynaa passwordka إن كرة باسور كقلدي هم وياه ما كده باسور كذا صحابه واتري كرتها ضاوة ترني ويحد ما يبغاس ما كقرت أنا أشبط كأي منه المداي مش على حياة بيتينك حاو هاي عدوا 0 نقطة سيدو كذا كومبليت كأسينا واي كاستمر كتوتال كاستمر كنود بين كشان وعلى وقف وعم بيحني توتال إكسبنسية وبقول كنت $9 توتال يوزلس كينا ولا عن بيت بالانسك waa 0 oo lacag dayta aan qabanay today receipt balance aan qabanay waa $3 marka halkaas ku soo gabagabay doona insha Allah taala